السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga ah waa walaashin Muzamil Cooking oo idin leh waa mar kale iyo muuqaal cusub maasha Allah asxaabay soo dhawaada mar waliba gacmo furan qalbi furan niyad saafi ah ku soo dhawaada maasha Allah maxay heedo please channelka cusub tahay subscribe iyo saara gambaleelkana furta si uu nagu soo dhaco video walba soo geliyo hadad ka heshana like dha wixii fikradana commentiga inta insha Allah marka asxaabay maanta maxaan ka hadlaynaa maanta waxaan ka hadli rabnaa haduu Rabbiga Raxmaanka inuu qadaro caafimaadka ama waxtarka ay leeyihiin biyaha cad waa biyaha caadiga ah ama tubada ma fahamteen jirka waxa ay qabanayaan iyo waxa maxay aheedo faa'iido ay leeyihiin intaas ayaan rabnaa inaan ka hadalno haduu Rabbiga Raxmaanka inuu qadaro insha Allah ila socda ilaahay wuxuu biyaha ka dhigay nolosha noolaha oo idil waxa maxay aheedo waxa intaas si dheer in jirka bini'aadamka 60% oo biyo ka samaysan yahay muhiimna u yahay shaqo kasta oo jirka ka dhaco marka Soomaalina hore u dhahdo maahano nafta waa biyo nolosha maya nafta waa caano nolosha waa biyo ma aheed ma qawayga maqantahay Soomaalina nafta waa caano nolosha waa biyo inay aheed rajeenaya marka biyo la'aan ma noolaan karo asxaabay ya maxay hadana caafimaadka ay inoo leeyihiin maxay aheedo inta ka aqaano aan sheegaya insha Allah inkasto aan faa'iidada laga helo cabitaanka biyaha aan la soo koobi karin waxaan isku dayaa inaan ka hadlo inta ugu muhiimsan biyaha wuxuu dheelitirayaa dheecaanada jirka ku jira dheecaanada ugu muhiimsan ee jirka laga sameeyo biyaha waxay ka qayb qaataan dheefshiidka dhuugista cunnada wareegga dhiigga sameynta caliyada xambaarida walxaha nafaqada si jirka loo gaarsiiyo iyo habeynta heerkulka jirka intaasiba waxaa laga maarmaan in qofka laga helo si uu u noolaado intaasba waa laga maarmaan in qofka uu helo si uu u noolaado jirku wuxuu ku dadaalaa sidii loo heli lahaa biyo ku filan sida awgeed eebbe wuxuu maskaxda bini'aadamka ku abuuray meel loogu talagalay in ay dareento oonka sida awgeedna qofka ku qasabto inuu biyo si degdeg ah ku raadsado si jirka hawshiisa aysan hakad u gelin waxay kaloo qaybtaas maskaxda ay kontarooshaa meelo kale oo jirka ka tirsan sida kiliyaha maxay aheedo iyadoo hadii oon yimaado kaliyaha loo sheego in kaadida ay ka hakiso si loo badbaadiyo inta yar ee biyaha ku hartay ma fahamteen maxay aheedo meel kasta shaqo gooni ah leedahay sooma ya biyaha marka waxtar badan ay leeyihiin biyaha waxay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta kala jirka taas oo macnaheedu ah biyaha waxay buuxiyaan caloosha iyagoo aan jirka u soo kordhin wax miisaan saari kara waana sababta ay dhaqaatiirtu ugu taliyaan dadka raba in ay iscaateeyaan in ay badsadaan cunooyinka ku badan biyaha dadka iscaateenayo kale waxa loo qoraa waa qudaartana waxay u badan tahay waa biyo waa asalkeeda markii la maxay aheedo biyo la'aan meesan dhalanin sooma marka qofka iscaateenayo waa muhiim inuu isticmaalo qudaartaas inteeda badan sida ansalaatada maxay aheedo qajaarka qudaarta tufaax oo kale maxay aheedo cambaha waxyaabahaas qudaarta dhan waa biyo sooma biyahaasna haduu isticmaalo oo maxay subaxina qofka waxa la subaxii markuu soo tooso oo xilliga salaad subax markuu u weysa qaadana inuu liitar biyo cabo يعني caafimaad badan ka helay maasha Allah igfashin xitaa laga sheegi ma hadii biyaha sida cabitaanka u badan yahay yani biyaha caadiga ka hadlaya cabitaanka ma ka hadlaya cabitaanada oo caadiga meelaha lagu shiido kama hadlayo laakiin cabitaanka caadiga biyaha cad marka caweysid hadaad subax waliba 1 liitar cabtid maxay aheedo kaliya xanuun arki maysid igfashin arki maysid waayo biyaha boqolkiiba maxay aheedo adi 60 maxay aheedo waa boqolkiiba 60 waa lagu noolyahay sooma hadana iyadoo maxay noloshiisan ka maarmin maxay aheedo waa muhiim qofka haduu subaxii liitar u cabo caafimaadkiisa maasha Allah aad iyo aad caafimaad ugu dareemaya hal la badsado biyaha caadiga ah subaxii ugu yaraan 1 liitar hal cabo waa aroortii marka soo kacdo xilliga salaada subax anaga waxa soo kacnaa sooma xilliga salaada subax waxaan tukanayna marka maxay xilliga salaada subax marka ay weysa qaadanayso kale weysa qaadka aad dhamaysato hadaad cabto 1 liitar biyo ah
maxay ahayd xitaa horta marka koowaad waa been ma caabi kartid 1 litir way dhib ay kugu tahay marka ugu horeyso way kugu dhib ay kugu tahay laakiin subaxda hal galas ay cabto subax labaad isku dayd inaad galas labaad ka dhigto subax saddexaad ka dhigto isku dayd 4 galas inaad ka dhigto haddana subaxi maxay ahayd ad isbuuc hada maanta hal cabtid biri laba ka dhigtid birdam 3 birdam 4 isbuucda ku gaarsiin kartaa maxay ahayd 1 litir maalin kasta marka hadaad 1 litir cabto kaliya xanuun arki maysid hadii si kale ku xanuuna laga yaab laakiin inta badan hadaad biyahaaga caawitaanka aabasatid oo biyaha cadan ka hadlaya kaliya xanuun arkimis infection isku arkimis waadna ku caatoobaysaa waayo biyaha cad cayil ma lahan caafimaad way leeyihiin laakiin cayil ma lahan qudaartan hadaa aabasatid ayagana sidoo kale ma cayileysid marka inta badan dadka oo loo qoro inay iscaateeyaan oo ay rabaan waxay isticmaalaan biyaha cad waliba ayagoo xoogaa qandac ah oo xitaa maxay ahayd oo liin leh ma fahamteen liinta ayadana caloosha waa jirtaa qofka iscaateena kale xoogaa yar biyuhu qandac ka dhiganaya liin dhanaan uu ku miirayaa si xoogaa baruurtas iyo waxaas u jarto ma fahamteen marka biyaha waxyaabo badan ay faa'iido u leeyihiin biyaha waxay awoodsiinayaan murqaha jirka unugyada murqaha waa u muhiim in ay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogtada ah u wadaan ma fahamteen oo ah in jirka dhaqaajiyaan qaybihiisa kala duwan sida awgeed dadka caawitaanka biyaha ku yar yahay waxay dareemaan caajis tabardari iyo murqa xanuun waana sababta maxay ahayd dadka jimicsada loogu taliyo waa sababta loogu taliyo dadka in la dhaho jimicsiga badiya soo ma fahmin ya dadka maya yani dadka jimicsada waa in dadka oo jimicsanayo waxaa lagu taliyaa inay biyaha badsadaan ma fahamteen dadka waa dadka jiimka galayo kale waxaa lagu taliyaa inay biyo ku filan ay cabaan ayaga oo man aysan jimicsi sameyn maadaama murqaha ay dhaawacmi karaan ma fahamteen marka biyaha waxay quudiyaan ama ay nuuriyaan maqaarka jirka qofka maqaarkiisa maasha Allah aad ay qofka u nuuriyaan maxay ahayd wayna quudiyaan yacni fiir hada tusaale soo qaado hadaadan biyo badan aadan cabin marka aad tagto yacni waxaa lagu soo qoro kale malaria ku hayso ama waxyaabo kale ku cirbada lagu soo qoray ama faleebo hadaadan biyo badan cabin xididkaaga banaanka ma soo baxayo laakiin haddii biyahaaga ay badan yihiin xididadaada dhaqso ayaa maxay ahayd lagu helayo ma fahamteen laakiin haddii oo biyaha caawistada isan badneen waxaa yaraanaya xididadaada yacni way dhumayaan ama way lumayaan ma fahamteen marka biyaha caadiga ah hala badsado asxaabey biyaha waxyaabo badan fara badan waxay ahayd faa'iidooyin fara badan aan la soo koobi karin ayay leeyihiin maasha Allah maxay ahayd biyaha waxay quudiyaan ama ay nuuriyaan maqaarka jirka maqaarka wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan jirka oo biyaha ka faa'iideysto waana astaanta lagu garto caafimaad ahaan marka qofka uu fuuq baxo in maqaarka uu mugdi ama qaleyl ama qafiif ama jiidmo ayuu noqdaa waxaana ka luma dhaldhalaalka waana sax fiir hada qofka markuu xanuunsado kale ama qofka markuu duqoobo kala fiiriya jirkiisa waxaa gala sooma kadkaduud uu ka siisay idinka yacni xoogaa yar maqaarka isku soo dibacay fiir hadane qofka markuu xanuunsado fiir markuu caafimaad qabo iyo markuu xanuunsado qof isku mid ma sooma qofka markuu xanuunsado jirkiisa fiir awal suu ahaa ma ahaana yacni waxaa maxay ahayd xoogaa yar wuu dibcayaa marka hadduu biyaha qofkaas uu badsado jirkiisa ma laga yaabo marna inuu maxay ahayd oo qafiif iyo wax uu dareemo biyaha waxay caawiyaan shaqada kiliyaha biyaha waxay jirka ka saarayaan wasaqda ayadoo kiliyaha geeya waxayna ka shaqaysiiyaan qaybaha kala duwan ee kiliyaha haddii qofka kiliyaha ay shaqada joojiyaan waxay keenaysaa in qofka ay sunta jirkiisa ku aruurto oo ku qasbanaado in la dhaqo ama mashiino lagu xiro ma fahamteen waxaaba qasab ahbo maxay ahayd in qofkaas mashiino jirkiisa lagu xiro biyaha waxay hagaajiyaan shaqada mindhicirada caawitaanka biyaha waxay ka hortagtaa calool fadhiga kale maxay ahayd saxaro adeega taas oo jirka u leh faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin waxay kaloo badbaadiyaan unugyada mindhicirada inuusan dhaawac gaarin
ma fahamteen marka ii sheeg adii faa'iidooyinka biyaha intaan ma lagu soo koobi karo waa maxay aheedo aad iyo aad ay u fara badan yihiin inta niiga muhiimsan ayaa nii sheegay maasha allah asxaabteeda soo dhawaada maxay aheedo waxaan leeyahay biyaha cad hala badsado insha allah intaan muuqaal dambe iniga soo duubayo waxaan iga tagayaa khayr iyo caafimaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh